muqdishona sidoo kale yaa xidiga madaxda lunsha oo looga dambeeyaa fanaaniinta markay imaanayaan oo kale oo show ku qabsanayaan mise fanaaniin kale ayaa jiro oo kow iyo laba saddex dhihi kartiin soo qor commentiga war degdeg dowladda Soomaaliya qaasatan laamaha amniga oo joojiyay showgii maalmahan muranka dhaliyay dhalinyarada Soomaaliya qaasatan ciyaar xamar kala qaybiyay Marwan Yare iyo sidoo kale fanaanada Habboon Nuura ayaa waxay rabeen show inay ku qabtaan caawadatan 13 Febraayo maalinta jaceylka ayaa dadka ay u tala galeen showga inuu qabtaan dhibaatada jirta waxay ahayd Habboon Nuura oo hees ka soo mid noqotay xamar lagu aflagaadenayo taasoo la leeyahay xamar cadow nooga darmo jiro waxaa nooga fiican oo kale amxaaro kale iyo ayadoo raali gelin ka bixin inay show noo qabato ma aqbalayna ay dhaheen ciyaal xamar intii badneedba sidoo kalena si kadis ay ku imaadeen xamar Marwan iyo sidoo kale Habboon Nuura maysan soo qorsheyn oo qorshahan ma ahayn qorshe dheer oo waqti dheer qaato oo dadkuna si ogaayeen ma ahayn showga inay qabsadaan sidoo kalena dad yar oo kooban ayaa soo dhaweeyay sidoo kalena dadkii soo dhaweeyay ayaa ka haleeyay barnaamijka dhan ay rabeen hadallo aan fiicnayn ayay ku hadaaqeen sidaasna dadkii shucuurtoodu way kacday sidoo kalena dadka qurba joogta ahna way huriyeen oo sidoo kale waxay soo fadhiisteen laafyaasha TikTok sidoo kalena cadaawad waxa jirto kale ayaa dhaweyd socotay fanaanka Dayaxdal Nuurshe iyo fanaaniin kale Hargeysa oo dhex martay fanaanka Muqdisho looga dambeeyo oo sidoo kale fanaaniintii markay Muqdisho heleysay fanaaniin asaaskoodii kamid ahay Dayaxdal Nuurshe oo maantana heer fiican soo gaarsiiyay sidoo kalena dayax ka iftiimaya fanka Soomaaliyeed qaasatan fanka Muqdisho marka fanaankan inay soo maraan hadii soo mari lahaayeen shacbiyada oo heesto dhalinyarada sida u soo dhaweyn lahaay ayaa ka maqneed ayaa la leeyahay fanaankuna ma uusan taageerin shacbiyadiisina waxay noqdeen kuwa asaga taageera oo fikirkiisa iyo sidoo kale erey ama qoraal yar ku soo qoray bartiisa Facebookana ay soo qaataan marka fanaankan inay soo agmaraan iyo fanaaniinta kale Muqdisho ay ahayd ay leeyahay ilaa hadda lama arkin fanaaniin kale oo sidoo kale fanaaniintan oo yimid oo soo dhaweeyay showgan wuxuu dhalin lahaa la leeyahay kala qaybsanaan iyo sidoo kale amniga oo sidoo kale qalqalgalay gabar iska soo duubtay ayadoo taagan $100 ayaan ku galaa showga si aan u carqaladeeyo $25 ay ku gali rabaan dadku laakiin qof $100 wataa qof $100 wataa lama celi doono islaamkana ma la celiyaba dhalinyaro badanna waxay dhaheen hoteelka banaankiisa ku qabsanayna show iyo samiicadaan soo qaadanina laamaha amniga daqiiqadii ugu dambeeyay ayay fakareen waxay dhaheen ma la qabanayo showga mar kale laga dhigo xiisadana si ay u degto Muqdisho marka waa maamadii fanka maamadii dalka qof kastana qof ka xiga ma jiro laakiinse waxay tabanayaan raali gelin ay ka rabaan gabadha Habboon Nuura maadaama ayadoo aflagaadeysay iyo ayadoo timid oo waliba raali gelin aan bixin la arkay hees ayuu soo qaaday qorraxdii dalka tahay qorraxdii ifka tahay xamar qiimo weyne laakiinse lagama hayo wixii hore waa ka tanaasulay taasoo u baahneen sida caadiga laakiinse ciyaal xamar ayaa ku dooday markii la soo dhaweynayay calanka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay siyaasi maahan gabadha fanaanad waaye haddii u shaqeynayso deegaankeedii dhulkeediina waa fanaanad ay u tahay sidoo kalena meelaha kale gobolada kale Soomaaliya iyo sidoo deegaanada kale Soomaaliya joogtana waa qof Soomaali haddii u heesana dhimana laakiinse waxay og tahay haddii ku laabato deegaankeeda in ay muutaysan karto xabsi maadaama shuruucda u taala xagga iyo shuruucda deegaanada kale Soomaaliya u taalo ama Soomaalida u taalo ay kala duwan yihiin marka adiga fikirkaaga noogu soo qor commentiga